السلام عليكم مركل waxaad ku soo dhawaataan muuqaal kale iyo barnaamijkeeni fikrad iyo faalo muuqaalka maanta ee barnaamijkeeni fikrad iyo faalo waxaan jeclahay inaan idinku soo gudbiyo muuqaal ayaan dhaweyd aan ka sameeyay barnaamijka aragti waxaan ka hadlaynaa magaceeda la yiraahdo expectancy theory aragtidaas oo aragti dhiirigelin ah waa aragti qofka xamaasadiisa xiisihiisa kor loogu qaadayo waa aragti qofka lagu dhiirigelinayo dad badan ayaa su'aalo iga soo weydiiyay ayaan dhaweyd muuqaalka waxaan uga hadalnay sida qofka madaxda ama mas'uulka ah ama markaas maamulaha ah ama hogaamiyaha ah uu isticmaali karo fikradda expectancy theory iyo faa'iidada uu ka helayo haddii uu isticmaalo muuqaalka maanta waxaan jeclahay inaan uga hadlo faa'iidada qofka caadiga uu ka helayo haddii uu isticmaalo aragtida expectancy theory waxaan soo sheegnay aragtida saddex tiir inay ku taagan tahay tiirka koowaad waxa weeyaan efforts tiirka labaad waxa weeye performance tiirka saddexaadna waxa weeyaan rewards qofka saddexdaa shay marka ay iskugu xiranto wuxuu helayaa dhiirigelin wuxuu helayaa xamaasad wuxuu helayaa xiiso oo markaas waxa weeye camalkaas uu ku qabto koo waxa weeye qofka in dadaal iyo juhdi laga helo inaad dadaashid inaad juhdi la timaadid inaad waxa weeye karti yeelatid waa tiirka koowaad tiirka labaadna waxa weeye inaad wax qabad la timaadid inaad wax soo saari kartid wax qabad waxa laga wadaa wax la taaban karo oo la tirin karo marka inaad dadaashid oo wax isku daydid oo juhdi la timaadid waa shay inaad wax soo saartidna waa shay kale tiirka saddexaadna waxa weeye qofka markii uu soo dadaalay juhdi uu la yimaaday wax qabad uu la yimaaday in wax qabadkiisii uu wax ka helayo way faa'iidadii inuu heli karo way abaalmarintii inuu heli karo way inuu heli karo waxa weeye outcome-kii iyo rewardskii saddexdaa shay qofka bini aadamka marka ay iskugu xirmaan markaas waxaa laga helayaa dhiirigelin markaas waxaa laga helayaa xamaasad marka waxaa laga helayaa xiiso qofkii camalkii uu ku sameeyo dad badan way ku adag tahay inay iswadaan way ku adag tahay in la dhiirigeliyo laakiin sida ugu fudud oo qofka loo dhiirigelin karo waxa weeye in saddexdaa shay la iskugu xiro ama in saddexdaa shay ay iskugu xiran tahay marka haddii aad maamulo tahay ama mas'uul tahay fikraddan waxay kaa caawinaysaa in tiimkaaga aad saddexdaa shay iskugu xiri kartid haddii markaas waxa weeye qof caadi aad tahayna in saddexdaa shay ay iskugu kaa xiran yihiin iyadana waa qodob muhiim ah oo meesha ku jiro marka waxaa loo baahan yahay camal walba aad samaynaysid inaad ka fiirisid saddexdaa shay waxaa markaas kuu fududaanaya in shidaalkii adiga ku dhaqaajin lahaa in naftaada laga helo in gudahaaga laga helo in markaa waxa weeye aad socon kartid oo shaqadii iyo camalkii marka aad rabtay aad samayn kartid adigoon banaanka dhiirigelin aadan ka helaynin gudaha aad dhiirigelin ka helaysid gudaha aad shidaalkii ka helaysid gudaha aad xamaasadii aad camalka ku qaban lahayd aad ka helaysid marka fikradda expectancy theory faa'iidadaas ay leedahay mirahaas ayaana laga guran karaa waxaan rajeynayaa in muuqaalkan aad wax badan ka faa'iideen wax badan aad ka barateen muuqaalkan dadka kale la wadaaga dadka kale gaarsiiya khayr badan baa idin rajeynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu